waxaa maanta degan guud ahaan xaalada nabadgelyo ee gobolka Sool gaar ahaan soodinta u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland ee jiida deegaanka tukaraq ee gobolka Sool halkaas oo maalmihii u dambeysay isku horfadhiyeen laba ciidan oo ka kala tirsan Somaliland iyo Puntland odayaashii waxgaradka deegaanka tukaraq ee gobolka Sool ayaa soo dhaweeyay xukuumadda Somaliland sidoo kalena waxay fariin u direen maamul goboleedka Puntland iyagoo sheegay inay taageersan yihiin imaanshaha Somaliland deegaanka tukaraq ee gobolka Sool tan iyo intii maamul goboleedka Puntland uu ku sugnaa deegaanka tukaraq ee gobolka Sool ayaanu ka qaban wax qabada haba yaraatee halka ay ka soo xaroon jirtay kastamka tukaraq $40,000 saddexdii shaba sida ay sheegeen odayaashu waxayna codsadeen in wax qabad buuxa looga hirgeliyo deegaanka tukaraq ee gobolka Sool meesha waa la yiraahdaa tukaraq waa magaalo dhul baxantay ka tirsan gobolka Laascaanood gobolka Sool ee Laascaanood magaalo madaxdiisa Laascaanood ilaa 2007 markii Laascaanood jamhuuriyadda Somaliland la wareegtay waxa haystay oo ka talin jiray maamulka la yiraahdo Puntland hadduu ka talin jiray dhulbaanta intii Somaliland raacday mooye inta kale waxay ahayd magaalo madax ama dulmi ha qabto ama yay qabin waa la yiri berigii uu joogay Ingiriisku dhulka ee Soomaalida gumaysan jiray waxa uu soo saaray Ingiriis wax la yiraahdo local marka waa tadee qabiil la iska dhigay Faarax iyo Maxamuud baa local ka qaatay xasan ugaas baa nin ka qaatay baa la yiri maantii dambe wuxuu tagay Boocani waa la yiri hal qabto ninkan gaaladii uu raacay waa la shaabadaynayaa ninba marka wuxuu yiri baa la yiri war Faarax iyo Maxamuud ma qaateen localkii qaatay baa la yiri waradi Faarax iyo Maxamuud qaateen walaal xasan ugaas cadeysmo oo ahaanayna sii daayay buu yiri ninka horba isaga taga waxay la tahay saaka tukaraq demeshi tolkeed marade martay meel kale uma go'ayso meeshii tolkeed maray bay martay horta meel kale uma go'ayso maamulada qaylinaya ee hadlaya magaaladan waa magaalo dhul bahante waa degmo gobolka Sool kamid ah waa magaalo dhul bahante leeyahay waxaan mar kale nimo ku harqaati haddii cid ku dagaalamaysan anaga ku dagaalamayna haddaan lagu dagaalamayna waa magaalo dhulbaanta taladeedu u taala inta waxaan leeyahay maamulada hareeraha ka qalqaylinaya daaroodka kale waxaan leeyahay dhulka ka qalqaylinaya Laascaanood xudun Ceerigaabo Taleex Saaxdheer intaasba jamhuuriyadda Somaliland baa ka talinaysay inta tukaraq qaylinaysan maad kuwa ka hadashaan tukaraq inta ka qaylinaysan maad kuwa ka hadashaan waxaan leenahay haddaba dhulka yaga anaga u tashanayna meeshii aanu danta moodno baanu raacayna Laascaanood gobolkii baa la yiri waa la soo raray ku meel gaar baa halkan Puntland ugu samaysay saddex maalmood $40,000 baa laga qaadaa maaliyadda dawladda hooseedu ma xisaabsano garan mayno dee rag baamo 43ka raad dawladdi leedahay tukaraq ma yaal laba qol oo lacagta la dhigan jiray baa horta dhisan annagu Puntland lama shaqayn jirin oo kamaanu shaqayn jirin Somaliland lama shaqayn jirin laakiin dadku ciidan la yiraahdo Somaliland inta Somaliland degta wasdal wasku sharci wasku xeer magarata waxaynu nahay dad wada dhashay oo isu yimid oo Soomaali waliba nugaal u dhashay iyo hareeraheeda haba anagu taas ku sitiigan maayo kalna wadi kana waan idin soo dhaweynay wax xumaan inay uma kala jirto annana xumaan idin ma hayno xogaa dan halka ka soo baxo hadii anigu ilaa maantaan garaadsaday waxaan arki jiray marka maamul isbedelo ama madax timaado annaga waxa qabanayna kuwii hore wax ma ahayn idinka oo annaga wacan waan arki jiray haddana waxa qaar waxba ka dhicin waan arki jiray أنا أحبك كسر
haddii aad tihiin sida aad noogu warramaysaan kuwa wax bixinaya kuwa wax qabanaya kuwa wax qoraya kuwa na soo dhaweynaya kuwa dadka iyo maatada korinaya wax u qabanaya haddaad tihiin waa idinku soo dhaweynay raalina waa idinkana مولد علي ستار تي في راس عنب